بسم الله الرحمن الرحيم qodobada caawa barnaamijkan aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland oo dood adag ka dhaliyay gudaha Israa'iil mid ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka oo ku tilmaamay arrin aan qaanuuni ahayn isla markaasna Netanyahu uu kaligiis go'aankaasi u qaatay wararkii ugu dambeeyay ee amurtan ayaan idin soo gudbinaynaa ururka Hamas garabka hubaysan ee Al-Qassam ayaa ku dhawaaqay isla markaasna xaqiijiyay geerida afayeenkoodii Abu Ubayda iyadoo mas'uuliyiin kale oo ka mid aha garabka hubaysanna la sheegay geeridooda la xaqiijiyay ruushka ayaa ku dhawaaqay in Ukraine ay soo weerartay mid ka mid ah madaxtooyooyinka madaxweyne Putin arrintan oo xaaladda dagaalka sare u qaadi karta marka qazana waxaa laga soo warinaya xaalado adag iyo dhibaatooyin ay sababeen qabowga darxumada la xiriirta roobka iyo xaaladaha kale ee adag ee bulshada dhammaan wararkan iyo weliba faraqayntii ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijkan sidoo kale kama marna wararkii ugu dambeeyay waxa soo dhaca maxamed cabdi wararkan isku soo duway ayaa qadka ku jira maxamed aan ku bilowno qodobada wararka ugu waaweyn ururka Hamas ayaa xaqiijiyay in horaantii sanadkan afhayeenkooda qaybta militariga ee loo yaqaan Abu Ubayda in la dilay afhayeen afku u xiran yahay oo asna afhayeenkaas oo madaxa afku u xirnaan jiray oo magaciisa dhabta u ahaa Hudayfa al-Kahlowd ayaa noqday nin lagu yaqaano inuu sanado badan afhayeen u ahaa ururka Hamas wuxuuna sheegi jiray howlgallada militariga ee ka dhanka Israa'iil waxaana muuqatay in miiqaamkii iyo jagadii uu hayay iyo faahfaahinta la xiriirta dhimashadiisa marinka Gaza halkaan ku celiyo waxa uu ahaa nin ka hadla mowqifka ururka Hamas iyo faahfaahinta la xiriirta khasaaraha Israa'iil ka soo gaara dagaalka Gaza oo fiidiyoyaal laga soo duubay ayuu sii dayn jiray Israa'iil ayaa khaarijisay ninkaasi isaga iyo qoyskiisa dabayaaqadii bishii August weerar ay ku qaadeen ama ku dileen dad badan oo kale garabka hubaysan ee ururka Hamas ayaa xaqiijiyay dilka abaanduulihii hore ururka Hamas Maxamed Sinwar iyo taliyayaal kale sida bayaanka uu akhriyay hogaamiyaha cusub ama afhayeenka cusub ee ururka Hamas oo asna loo bixiyay Abu Ubayda kooxaha badbaadada marinka Gaza ayaa sheegay in tirada Falastiiniyiinta ku dhintay hawada aad u qabow ee horaantii December inay hadda gaartay 25 qof oo ay 6 caruur ay ku jiraan hawada ayaa aad u qabow marinka Gaza kooxaha badbaadada afhayeen u hadlay Maxamuud Basal ayaa ku sheegay bayaan uu soo saaray in dhimashada inteeda kale ay ka timid guryo soo dumay ama guryo jilicsanaa oo dumay iyo darbiye soo dhacay dadka oo biyo ka urursanaya roob ama biyo ka daldalanaya ama ka dhaansanaya roob wararka caalamkana waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ruushka Sergey Lavrov ayaa ku dhawaaqay in dalka Ukraine ay weerar argaxiso ku qaadeen oo diyaarado dowladda ay u adeegsanayaan deegaan uu madaxweyne Putin ku leeyahay deegaanka la yiraahdo Novgorod Oblast waxa uu wasiirka arrimaha dibadda hoosta ka xariiqay in ciidamada difaaca Ruushka ay burburiyeen dhammaan diyaaradihii droniska ahaa ee weerar ku soo qaaday xarunta madaxtooyada wakaaladda wararka ee taas ayaa ku waramaysa in dowladda Ruushka ay ogaatay bartilmaameedka iyo waqtiga la qaaday weerarka ka hortagga ah kadib markii la isku dayay in la weeraro deegaanka madaxweyne Putin waa tahay maxamed waa mahadsantahay daawadayaashana way mahadsan yihiin daawadayaal waxaan u gudbaynaa falaqaynta wararka hayeeshee aynu ku hakanno qadar xayeysiina soo dhawaada markale daawadayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa hagaag intaan u gudbin falaqaynta balaynu eegno war imika soo dhacay warkan hadda ugu dambeeya ee ruushka ka soo yeeray waxaa lagu soo warramayaa in Ukraine ay beeninayso inay weerartay mid ka mid ah xarumaha madaxtooyooyinka ee madaxweyne Putin inkastoo hadalkan uu xaqiijiyay madaxweynaha ruushka wasiirkiisa arrimaha dibadda Sergey Lavrov waag maxamed arrimaha falaqaynta intaan u gudbin hadalkan ka soo yeeray hogaamiyaha mucaaradka ee Israa'iil bal aynu ku hormarno warkan la xiriira hogaamiyaha afhayeenka Kataib al-Qassam geeridiisa arrintan waxa khubaradu ay ka tiri
madaxa qaybta lagu barto cilmiga siyaasadda ee jaamacadda Hebron Dr. Bilal al-Shubaki ayaa waxa uu sheegayaa Israa'iil ayaa muddo dheer waxay raadinaysay inay kharijiso afhayeenka ururka Xamaas Kataib al-Qassam ninka la kharijiyay Abu Ubayda muddo badan ayay ku daba jirtay hase ahaatee in magacii loo bixiyo afhayeenka cusub ayaa waxa ay yareysanaysaa hadafkii oo ay lahayd Israa'iil waxayna cadeynaysaa in wax walba Israa'iil ay samayso in ay ururka Xamaas bedeli karaan waa gartay waa yahay sidee u saameynaysaa marka maxamed arrintan rag badan baa la xaqiijiyey maxamed Sinwar oo kamid yahay afhayeenkii hadda waa la xaqiijiyey inkastoo booskiisii la bedelay waxaa kaloo la xaqiijiyey oo dhawaan lagu dilay marayka Gaza Raid Sacad marka saameynta arrintan ay ku yeelan karto Kataib al-Qassam iyo guudaan Xamaas iyo iska cabinta marayka Gaza maxay khibradu ka leedahay warbixin ay dhawaan soo saareen Israa'iil ayay ku sheegeen marka laga gudbo Israa'iil inay beegsanaysay hogaamiyaasha ururka Xamaas in aanan wax isbedel lagu arag kartida dagaalka iyo qaabka ay u howlgalayaan iyo madaxda dhimatay sida loo bedelayo markay arkeen iyo ururka Xamaas sida ay isu abaabulayaan iyo ciidamada badan ay qoranayaan inaynan wax saameyn ku lahayn nidaamkii hoggaanka haddii mid kamid hogaamiyaashooda u dhinto dhanka kale ururka Xamaas waxaad moodaa inay muddo badan isdiyaarinayeen isku xirkooda wada shaqayntooda iyo sirtooda inay adag tahay Israa'iil dadaal badan ayay ku bixinaysay inay hogaamiyaasha layso ama sida hadalka loo dhigay in ay beegsato dadka madaxda ah si ururkan u kala daato waxaana laga marqaati kacay in ururka Xamaas uu isku xiran yahay marinka Gaza oo dhan inay gacanta ku hayaan ayna muuqato Israa'iil wax walba oo ay samayso inay ka gaashaamanayaan hogaamiyihii ay dishana inay bedelayaan dagaalyahanada inkastoo mas'uuliyiin sarsare laga dilay oo laga bilaabo Yaxya Sinwar walaalkiis abaanduuliyaal kale afhayeenkii caanka ku ahaa baahinta guulaha iyo dhibaatada Israa'iil la gaarsiiyo waxaa hadda muuqata in Xamaas in ay soo gaartay meeqaam ay ku sheegto wixii dhacay waxayna muujinaysaa sida isugu kalsoon tahay ururka Xamaas sida khabiirada hadal ku dhigaya waa gartay waa yahay dhanka bariga dhexe aynu ka baxno inkastoo laakiin aanu imaan doono badda cas iyo aqoonsiga Israa'iil iyo Somaliland laakiin warkan Ruushka ka soo yeeray oo ah in Ukraine ay weerartay mid kamid ah madaxtooyooyinka Putin arrintan maxay yeeli kartaa xaaladda dagaalkan maxay ku soo kordhin kartaa xilli wada hadalla ay socdaan wararka hadda ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in ay Ukraine beenaynayso laakiin waxaad ogaataa madaxweynaha waddanka Ruushka meelo badan ayuu ku leeyahay madaxtooyo iyo gobollo badan meelaha ugu caansan xilliga xagaaga waxa uu tagaa xeebaha ku yaala badda madow magaalo kasta iyo gobol kasta oo weyn wuxuu ku leeyahay mataqaanaa xarun madaxtooya in Ukraine ay beegsato xarun madaxweyne Putin uu leeyahay waxa ay sii xumeynaysaa ama sii fogeynaysaa maqaamka iyo mowqifka waddanka Ruushka waxaana muuqata hadda in gobolladii muhiimka ahaa oo dhan hore gacanta ugu jiray Ruushka hadda lasii ballaariyey meelaha hadda khatarta ku jira la tilmaamayo waxaa leeyahay in ay ka mid yihiin goobo xasaasiya oo ay ka mid tahay deegaanada xeebta ee badda madow waxaana muuqata dhulkii uu qarameeyey oo dhan Ruushka in laga yaabo inay gacantiisa soo galaan dhanka kalena Zelensky ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha Mareykanka oo ay isla soo qaadeen qodobadii uu madaxweynaha Mareykanka soo jeediyey waxaana muuqata in qodobadaasi haddii xataa ay Ukraine yeesho inaynu wax badan isbedelaynin sababtoo ah Ruushka aad iyo aad ayuu u xoog badan yahay waa gartay waa yahay aanu imaano arrimahan wada hadallada Putin iyo Zelensky iyo waxa socda iyo Trump Ruushka ayaa ilaa hadda wax
falcelin aanan ka bixin booqashada ugu dambeysa Zelensky uu ku tegay dalka Mareykanka afhayeenka aqalka looga taliyo wadanka Mareykanka wadanka Ruushka Dmitry Peskov ayaa xaqiijiyay Putin in uu telefonka kula hadlay madaxweyne Trump halka aqalka cad gabar u hadashay oo Caroline Levitt la yiraahdo ay xaqiijisay in madaxweynaha Mareykanka uu la hadlay dhigiisa wadanka Ruushka Vladimir Putin kadib markii uu kulan la yeeshay madaxweynaha wadanka Ukraine Zelensky madaxweyne Trump ayaa ku soo gabagabeeyay telefonkaas ay ku wada hadleen madaxweyne Putin walwalka uu ka qabo arrimaha Ukraine sida ay gabadha afhayeenka u ah aqalka cad ee Mareykanka ee barteeda bulshada ku qortay Putin dhanka kale waxa uu sheegay Ruushka ciidamadiisa inay ku kalsoon yihiin inay horumar weyn ka sameynayaan gobolka Donbass magaalooyinka Zaporizhzhia iyo Kherson ay kaabaha u saaran yihiin gobolada ay gacanta ku hayso Ukraine oo Moscow ay ballan qaaday in ay qaramayn doonto ayaa hadda waxay yihiin waxyaabaha la isku mari laayahay wada hadallada Zelensky ayaa sheegay in handisi ugu dambeeyay wada hadallada uu madaxweynaha Mareykanka ka helay 15 sano oo amniga wadanka Ukraine uu Mareykanku damaanad qaadayo wuxuuna sheegay in uu rabo inuu damaanad qaadka gaarsiiyo ilaa 50 sanadood wuxuuna intaas ku daray in 27 qodob qorshaha ahaa madaxweynaha Mareykanka uu soo jeediyay loo baahan yahay in lagu ansixiyo afti laga qaado shacabka Ukraine haddii xabad joojin dhacdo muddo 60 maalmood ah waa gartay waaya markaan balaynu eegno xagga Israa'iil waxa leeyahay arrintan mucaaradka waxay si weyn uga hadlayaan aqoonsiga Netanyahu uu siiyay Somaliland nin kamid ah hogaamiyaasha mucaaradka iyo arrintan maanta baarlamaanka si adag uga hadlay maxaynu ka ognaa Maxamed wararkan mid kamid ah hogaamiyaasha mucaaradka ee ugu awooda badan Yair Lapid ayaa cambaariyay aqoonsiga ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu aqoonsaday Somaliland wuxuuna ku sheegay tilaabadaasi inay muujinayso in siyaasadda arrimaha dibadda iyo qaabka loo qaabeeyay aan ahayn hab cad oo dhameystiran arrintaana waxay ku soo beegmaysaa hadal uu Lapid ka jeediyay mar ay guddiga xiriirka caalamiga ah iyo warbaahinta ay ku lahaayeen baarlamaanka Israa'iil gudihiisa sida laga dheehday ama laga daawaday video lagu soo daabacay bogga rasmiga ah ee kaniisad baarlamaanka Israa'iil ayaa waxaa muuqata in xilliga iyo arrimaha gudaha Israa'iil waxa ka jira iyo dibadda waxa ka jira cambaareynta siyaasadda Netanyahu ah inay si dardargelayso Lapid ayaa waxa uu sheegay in lagu dhawaaqo aqoonsiga Israa'iil aqoonsiga Somaliland in ay tahay go'aan aynan xukuumadda gaarin inay ahayn go'aan ay xukuumadda gaartay waxa uu ahaa go'aankaas sidoo kale ma aysan qaadan buu leeyahay golaha wasiirada waxa uu ahaa go'aan uu gaarkiisa u qaatay xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil waxaan loo tixgelinayaa kaas inuu gudub ku yahay nidaamka rasmiga ah ee siyaasadda iyo diblomaasiyadda go'aanka looga qaatay Israa'iil hogaamiyaha mucaaradka ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in aqoonsiga Somaliland uunan ahayn mid la soo dhaweeyay caalamka oo dhan ayaa aad u cambaariyay dalal badan oo caalam ka mid ah oo ay ka mid yihiin dalalka gobolka wuxuuna intaas ku daray dowladda Israa'iil siyaasaddeeda arrimaha dibadda ma cadda waana tilaabo kale oo muujinaysa in mabaadi abaabulan inayna Israa'iil ku dhaqmaynin Lapid hadalkiisana ayaa kusoo beegmaya iyadoo Netanyahu uu ku dhawaaqay jimcihii lasoo dhaafay Israa'iil in ay si rasmi ah u aqoonsatay Somaliland tilaabadaasi oo dhalisay falcelin goboleed gobolka bariga dhexe ah iyo caalamka intiisa kale gaar ahaan Soomaaliya ayaa iyadana aad u cambaareysay Lapid cambaareyntiisa Netanyahu qaabku u dhaqmayo ayaa waxa ay ku soo beegantay iyadoo kulan uu dhex mari doono madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil waxayna ku kulmi doonaan Florida wuxuuna leeyahay
ra-iisul wasaaraha Israa'iil qorshe cad ma wato la xiriira mustaqbalka Gaza halka ra-iisul wasaaraha Israa'iil uu u safray kulankani oo madaxweynaha Mareykanka la yeelanayo waxaan u rajeynayaa uu yiri guul hase ahaatee waxaan ka warwarsanayaa uu yiri sababa la xiriira in Netanyahu uu kulankaasi imaanayo asagoo aan aragti ka lahayn marinka Gaza labid ayaa sidoo kale wuxuu digniin ka bixiyay haddii aragti la'aan ay noqoto inay horseedi karto dhinaca kale in ay go'aanka ay rabaan Israa'iilna ay ka qaataan haddii xukuumadda Israa'iil ay la imaan weysa afkaar iyo qorshayaal cadcad oo marinka Gaza ku wajahan Mareykanka iyo ururka Xamaas ayaa afkaar la imaanaya ayuu sheegay isagoo ka hadlaya cabsida uu ka qabo in Israa'iil lagu soo rogo arrimo danaheeda ka dhanka ah oo la xiriira xagga siyaasadda iyo xagga amniga marka uu qorshe la'aan tago meesha waa gartay waa yahay dabcan hadaladaas waxaa ka muuqata inuu u arkayo Netanyahu in toos uu loo maamulayo oo Trump uu u maamulayo waa gartay waa yahay war hadda soo dhacay waxaa la sheegayaa wadahadalkii qadka telefoonka ay ku yeesheen Putin iyo Trump in Putin aad uga carooday weerarka Novgorod ay ku soo qaaday Ukraine xarunta madaxtooyada ku taal halkaas wuxuuna sheegay inuu dib u qiimeyn doono arrimaha dagaalka Ukraine arrintan ma waxa loo fasiran karaa in hadda kadib la beegsan karo xarumaha madaxtooyada Ukraine oo kale oo inta badan aan la duqeyn tani dagaalku intii uu socday warkaas wuxuu ka soo kordhawayna arki doonaa maxamed xagga Shiinaha iyo Taiwan aynu eegno qariiradan waxay muujinaysaa sida Shiinuhu dhoolatuska maanta uu bilaabay uu u hareereeyay guud ahaanba waddanka Shiinaha waddanka jasiiradda Taiwan dhahdo Shiinuhu u hareereeyay afartii gees ayuu ka digay dhoolatusba halkaas ka socda maxaa lagu fasiri karaa arrintan Shiinaha dhoolatuskan uu sameynayo ma aha midkii ugu horeeyay dhowr dhoolatus oo kale ayuu sameeyay wararka soo baxay waxay sheegayaan waddanka Hindiya iyo Shiinaha iyo waxa ay bilaabeen inay dhaqdhaqaaq badaha Pacifiga ay ka sameeyaan dhoolatuskan gaarka ah hadda Shiinaha ayuu gaar yahay uma muuqato Shiinaha inuu xoog ku galayo Taiwan laakiin waxa muuqata in dhaqdhaqaaqani uu xakameynayo in maraakiibtii Mareykanka ee dhulkaasi mari jirtay oo kale in goob dhoolatus ka dhacaya inuu dhawaanin waxaana muuqata oo kale in Japan ayaan dhaweyd iyadana ku soo dhawaatay jasiirado ay awalba ku muransanaayeen Japan iyo Shiinaha xuduudiisa ayaa soo balaaranaysa wadahaasi dhoolatuska uu sameeyo ma aha kuwan halkan ku kooban oo kaliya inta sawirka ka arkayno waxa jira xagga hawada ayuu dhoolatus sameeyaa xagga gantaalada ayuu sameeyaa macluumaad badan ayuu urursadaa badda la yiraahdo badda Shiinaha koonfureed dhaqdhaqaaq badan ayaa ka jira Japan laftirkeeda ayaa agab military meelahaas ku soo ururinaysay xaaladdu inay gacanta ka bixi doonto in kale lama oga laakiin bariyahan dambe Shiinaha dhaqdhaqaaq badan ayuu waday waa gartay maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashu inay mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo